haween si iskooda isku agaasimay ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ka qayb galay kulankooda xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka gudoomiyihii hore ee degmada Waaberi marwarooda colaad ayaa ka hadashay kulanka iyadoo sheegtay in dalka iyo dadka ay haweenka samata bixin karaan haddii fursad la siiyo doorkooda ku aadan siyaasadda shirkan wuxuu u yahay gundig shirar badan oo soo socday oo haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan ee aad civil society ama bulshada rayidka aad iyo aad ee waayahan dambe haweenkoodii ee aad u abaabulayeen oo kamid ah war haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay miyaan marqaati ka noqonnaa waxa socdo iyo xaaladda wadanka iyo xaaladda siyaasadda sida ay ku socoto mise waan u istaagnaa dalkan iyo dadkan waxa u maqan waa anaga ee maxaan ka sameynaa su'aalahaas oo badan ayaa waxa la isku soo weydiiyay kulamo badan oo ay ka mid yihiin maadaama wadanka caabuqa uu ka jiro zoomka baashirar badan haweenka ku yeesheen haweenka Soomaaliyeed ee joogo raas caseer ilaa iyo raas Kamboni markaan taladoodii iyo warkoodii aroorinay waxaa nooga soo baxay haweenka Soomaaliyeed inay marqaati ka noqon karin wadankan inuu dib u noqdo sidoo kale waxaa ka hadlay senator Naciime Ibraahim Yuusuf iyo Farxiyo Muumin oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka annagana xaqiiqatan aan ku jirno baarlamaanka 8 dumar ah runtii xaqna u leh inay shirarkaas ka qayb galaan gogosha wax ka fariistaan ma aragtay masiirka ummadda Soomaaliyeed ay ka go'aamiyaan mana dhicin marka hadda wixii ka dambeeyay waxa aaminsanahay gabdhaha Soomaaliyeed isku duuban oo civil society leh kuwa baarlamaanka ku jira iyo kuwa walba inaan u istaagno xaq annaga aan leenahay oo ah inaan miiskaas ka maqnaan karin oo muhiim tahay inaan qayb ka fariisano oo wax ka dhexdhexaadino oo talooyinka wax ka qaadano oo go'aamada wax ka gaarno maadaama annaga aan nahay baarlamaankii sharciga haystay oo loo soo doortay runtii waxaan hoos ka xariiqayaa fariimihii ay direen gabdhaha Soomaaliyeed ee halkan isugu yimid ee ah in maaragtay khilaafka taagan lagu xalliyo wada hadal wada xaajood is ogol iyo in dalka la samata bixiyo Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa iyaduna ka hadashay iyadoona warmurtiyeedkii ka soo baxay kulanka warbaahinta loo aqriyay inay ka qayb galaan sidii loo heli lahaa nabad wada hadal gogosha oo la wada fariisto iyo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed sidii loogu istaagi lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyarada culumada ganacsatada cid kasta oo Soomaali ah maanta waxa waajib ku ah inay u istaagto inay Soomaaliya u midowdo danaheeda guud dawladnimadeeda iyo doorashada in la aado shirka wada tashiga haweenka ee Soomaaliyeed waxa ka soo baxay 3 qodob oo kala ah number 1 ama qodobka koowaad haweenka Soomaaliyeed waxay soo dhaweynayaan kulamada iyo wada xaajoodka dalka xalka looga raadinayo xaaladda siyaasadeed ee dalka waxay ku baaqayaan in laga gungaaro hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho iyo kii 16 Febraayo ee Baydhabo lagu gaaray qodobka saddexaad haweenka Soomaaliyeed waxay u fidinayaan gogol nabadeed oo ay qayb ka yihiin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya madaxda dawladda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaashii hore ee dalka iyo cid kasta oo muhiim u ah xal u helidda iyo geedi socodka arrimaha siyaasadda ee hadda taagan haweenka Soomaaliyeed waxay dareensan yihiin marxaladihii uu soo maray wadanka 30 sano ee la soo dhaafay iyo meesha uu maanta marayo iyo inuu u baahan yahay in la ilaaliyo loona turo marxaladda soo kabashada dalka sidaa darteed haweenka Soomaaliyeed waxay cod dheer ku leeyihiin waa in loo tanaasulaa danta shacabka Soomaaliyeed ee la iskugu tago miiska wada hadalka si xal wada jir ah loo gaaro Isxaaq Rashiid Maxamuud 5TV Muqdisho